ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa maanta gaaray magaalada Laascaanood ee gobolka Soolaa. xubno ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, madaxda maamulka Qaatumo iyo shacab fara badan ayaa halkaas ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaare Xamse, kaasi oo la filayo inuu ballanqaadi ku yabooqo inta uu joogo magaaladaas. Xamse ayaa safarkan ka heli doona siyaasadeed oo matalaadiisa la xiriira kadib markii laga xirtay oo loo diiday inuu tago maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ka mid ah goobaha uu ku matalo saami qaybsiga siyaasadeed ee Soomaaliya. booqashadan ayaa dharbaaxa ku ah maamulka Somaliland oo rabay inay ictiraaf ku raadsadaan juqraafiga dhul ayna helin. sidoo kale maamulka Puntland oo iyagana ka goos adeegay dhismaha Qaatumo ayaa awoodi waayay inay hakiyaan safarkan. inta uu joogo ra'iisul wasaare Xamse waxaa laga filayaa dhowr arrimood. kow, mashaariic cusub. ila ka tirsan dowladda federaalka waxay noo xaqiijiyeen in uu ra'iisul wasaaruhu ku yaboohi doono mashaariic cusub inta uu joogo magaalada Laascaanood. labo, ciidamada. maamulka Qaatumo wuxuu gacanta ku hayaa ciidamo fara badan laakiin uma hayo wax dhaqaale ah. waxaa la filayaa in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay si buuxda ula wareegto ciidankaas oo ay mushaar rasmi ah u bilowdo taliyana u soo magacaawdo. saddex, kaalinta siyaasadda. Xamse doodaha ku qabsan doona magaalada Laascaanood waxaa ka mid ah inuu maamulkani matalaad ku yeesho golaha wadatashiga qaran ee kulmiya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. afar, dhismaha maamul buuxa. reer Qaatumo waxa ay doonayaan in maamul goboleed rasmi ah loo aqoonsado. ra'iisul wasaare Xamse inkastoo dastuuriyan awoodin inuu aqoonsi bixiyo oo ay tahay shaqo u taalo golaha wasiirada, baarlamaanka iyo madaxweynaha, haddana qodobka aqoonsiga waa mid ka mid ah doodaha horyaala Xamse inta uu joogo magaalada Laascaanood. shan, kabka maaliyadda maamulka. xoguhu waxay sheegayaan in aan lacaga aan badnayn ee dowladda dhexe ay bil walba siiso maamulkan, laakiin culayska dhaqaale ee xooggan ayaa weli halkaasi ka jira. ra'iisul wasaare Xamse inuu kordhiyo kabka ee dowladda dhexe ay siiso maamulka Qaatumo waa arrin laga fari karo safarkiisa. lix, doorashada. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo nidaamkiisa waxay ku adkeysanayaan qabashada doorasho qof iyo cod ah dalku maadaama uu yahay federaalist qabiilaysan. Xasan Sheekh waxaa walaac ku haya haddii la heli karo deegaano Xamse ku reer ah oo sanaadiiqa doorashada la geyn karo. Qaatumo waa dooq furan waxaana la filayaa inuu ra'iisul wasaaraha kala hadli karo inay la dhaqaajiyaan doorashada la isku khilaafsan yahay ee qof iyo codka ah. haddaba sidee u aragtaa adiga?